السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرارو قود ميا قوغاني بلد ميا قرارو قود ميا قوغاني بلد ميا هذه وإذن السلام هيا دمانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. in badan baan qaraaro soo qaatay anoo nacamleynay bal hadda insha Allah dileeraa bal dublow hal arko asoo qaraaro wato oo dhaxaad aad iyo aad soo dhawaada khiyaarta sharafta leh meel walbeeto adduunyada kaga sugan tihiin waa waaskii dublow wahaa kablow faarax walaalkiis macawkii ka yaraa Bashiir Balla mataana aan xayso gor saaxiibkiis qarasho diriskiis kunoo law raawna garsay ku saha jaaba ka jalagti macal shuuriya banaan weyn shanta baqa qoray salaanta islaamka ay ku salaamaya meel walbeeto adduunyada kaga sugan tihiin dadka cusub ee duqbalow caayada ku bilaabay iyo dadka horeeto duqbalow hore u caayay jiray iyo kuwa hadda amaani doono iyo kuwa hore u amaani jiray idinko isku wada jira dhamaantiinba waxay idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wax wanaagsan arooriyo suuban baa idin leeyahay yaa risaaq yaa fataax baanu leenahay yaa risaaq yaa fataax aadiya aad baan idin salaam hayaa wuxuu yar baan carcartan iyo kafta yara galaya oo idinka yara qososhiinaya inta aan warbixinta aan soo qoray aan galin warbixinta aan soo qoray waa sir xasaasi ah oo aad iyo aad xasaasi ah oo very sensitive insha Allah waa kor istaagaya si wanaagsan oo qurux badan baan uga hadlayaa aad dad badan bay dhibi doontaa aad u dhibi doontaa nimayo horta anigu dublow saadiga barateen oo ii daawo jirteen horeyto muwaadin Soomaaliyeed baan ahay dalkiisa jecel calankiisa jecel ciidiisa jecel dhulkiisa jecel walina ku darsaday administrationka markaa jiray uu hogaaminayay Farmaajo Khayre nin aad u jeclaa baan ahaa oo dhalaan taageerayay ma sha Allah muddo 3 sano waa waqti badan weey oo aan shaqeysanayo taraagan dul saaraa yaa si volunteer ah oo mutadawacnimo ah oo Soomaalinimo ah yaa ku taageerayay ma sha Allah haddana ma sha Allah waxaan noqday muwaadin Soomaaliyeed oo xor ah waxaan iri dhaxaad baa ka noqonaya hawshii socotay iyo siyaasadii socotay dhaxda ka istaagaya waxaan noqonayaa social media activist analyze gareeyo siyaasadda Soomaaliya iyo qaabka u socoto anigoona cidna favor ugu sameeynin social media anigu aan soo galaano cidna ugu sameeynin favor ya waxaan iri dhaxaad baa ka noqonaya Facebook-gayga haddaad aragtaan oo aad duqbalow daawataan aad baad ula yaabaysaan very waxa weeye waa mucjisa ka socoto aniguna aad baan ugu qoslay ma sha Allah aad baan ula yaabare saaxiibadii horeeto oo aan magaraysay aan wada shaqeynay aan dawladda taageerinay oo u badan magaraysaa anoona qabaa'ilo Soomaaliyeed aan gudub ka galeynin u badan meelo u badan yaa waxay bilaabeen magaraysaa lacagtii baa laga goostay duqbalow waa shaqaysto oo xamaasho oo xoogiisa xamaasho aad iyo laakiin nin siyaasadda Soomaaliya dawladda aad u taageersanaa baraha social media muddo dheer ba ku soo jiray fikirkayga hadlaa cidna uma rarnayn anigii hadda waxaan dareemay dad badan oo hadda koor mucaaradka idacayday jiro waxa jirnay war duqbalow waa sixreeyahay war duqbalow ma garaysaa dhabarku ka rareeyahay war duqbalow ma garaysaa sibuu ma garaysaa aad iyo aad maxbuus war anigiiba hadda dareemay inaan maxbuus sababto ina hadda xor noqday ba yarada dad waxa arkaysaa si dhimbalek waa saaxiibaday laakiin waa ehelkaygii waa dhiigaygii waa dheecaankaygii muddo dheer soo shaqeynay anigu ma fikradeydii bedelay ayaguna inay iska caytamaan waa dhimbal iska wada hawshiina way soconaysaa halka markay maraysaan maanta laba qodob oo sir ah oo xasaasi ayaa ka hadlaya doorashadii baa timid nin walba 4.5 buu ku noqday nin walba deegaankiisii buu dib ugu noqday nin madaxweynaha si taageerayo magaraysaa reer ahaan ku taageerayo ha taageero nin ra'iisul wasaaraha reer ahaan ku taageerayna si taageero xildhibaanadii waa noqdeen oo nin walba deegaankiisii iyo wuxuu aaday magaraysaa degmad doorashadii laga soo doortay dib ugu noqday iyo ugaaskii iyo odaygii hadii la inkiray hadda dib lagu noqday halka waa carcarta kayga halkaasaan kaga tagayaa waxaan ka hadlayaa oo si toos uga hadlayaa labada arrimood aan soo qoray aba masuur roobow iyo Sakariye ninkii taliyaha ciidanka sirdoonka ahaa ee hadda xilka laga qaaday iyo aba masuur roobow oo maanta cuntadii ka soomay oo cunto cunayni waxay ku kala duwan yihiin baan ka hadli doonaa qodobkayga koobaadna waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya hadda xilka hayo ee mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu damacsan yahay markuu xilka ka dagto
inuu soo jabhadeeyo uu jabhad awood leh uu samaysto kuna dagaalamo dawladda markaa jirto kuna la dagaalamo maamulka hadda Kismaayo ka jiro ayaan analyse-kiisa galayaa oo si wanaagsan oo qurux badan ummadda u fahansiinaya aad iyo aad meel bata joogtaa waa waaski duqbulow kablow faarax macowkii ka yaraa Bashiir Balla Mataraan xaasoo goro saaxiibkiis qarasho dariskiis ku noolow rawna garsee ku soo hajaab kaja soo dhawaada sheer gareeya meel bata gaarsiya idinko maasan waan ogahay kuwii xanaaqsanaa ma sheer gareeyaan laakiin kuwa cusub iyo taageerayaasha cusub ma sha Allah iyo kuwii horeetay duqbulow Soomaalinimada iyo ma garanaysaa ku taageersanaa calanka buluuga iyo dadnimada iyo runta hadalka duqbulow ku taageersanaa sheer gareeya si gudbiyaadiyad loo dhutin maayo laba qabiil ama hal qabiil ama saddex qabiil oo anigu ma garanaysaa u maleynay inaan reerkooda difaacay loo dhutin maayo halka iga dhiga aadiyad tusa oo dareensiya ina sheerka 1500 bad maraysanad tusa oo dareensiya inuu duqbulow xor yahay tusa oo dareensiya duqbulow inuu fikirkiisa xor yahay dareensiya aadiyad anigii baa inaan maxbuus ahaan dareemay inaan cabursanaan dareemay inaan ma garanaysaa la haysta iga dhiga aadiyad marka wax shaqeynaya ma aadiyad sheer gareeyo oo 3000 iyo 2000 gaarsiyo tusa war waxaan anaga control la dhaaf social media anaga control loo siday tahay social media anaga control la dhaaf aadiyad halkaas kaga tagaya waxa kale warbixinta soo gal madaxweyne maxamed Abdullaahi Farmaajo aniga muddo dheer ba taageeray qalad iyo sax waa taageeray laakiin asaga iyo la taliyaashiisa iyo ma garanaysaa administrationkiisa iyo qaab kasta ee ugaaskiisaba dagaal bay ku jireen anigu waan arkayay waan u jeeday mar walba waan kala hadlay waxa la war anigu ana idin taageero aniga dadkii inaceen anigii waa habeen walba idin qeylay war ka daay waxan dhagay jalq leeyma sin anigu waxaan ku yiri maalin baan dawladda ka hor imaan doonaa maalintan dawladda ka hor imaadana runta xaqiiqda sheegi doonaa xaqiiqda sida ay tahay iyo runta sida ay tahay yaa sheegi doonaa baan ku yiri insha Allah hadduu Ilaahay maantana waa maalintii weey sanad cusub baa bilowday oo 2020 la yiraahdo 2019 iyo 2018 iyo 2017 waa laga soo gudbay 2020 insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ahaan doonaa nin dhexdhexaad oo runta ka hadla xaqiiqda ka hadla mudane maxamed Abdullaahi Farmaajo markuu xukunka ka qabsaday ee uu dawladda la wareegay carcartan wanaagsan iyo shaqo wanaagsan buu ummadda Soomaaliyeed u keenay lagama xaqirayo ummadda Soomaaliyeed oo dhan wanaag iyo ficnaan iyo rajo wanaagsan bay ku soo dhaweysay kalgacal iyo muxibba lagu soo dhaweeyay habeena dhan maana seexanin ummadda Soomaaliyeedna ma aysan seexan ana ugu dambeeyo 3 sano yaan qeyrinayo radiyallahu anhu ku ay madaxweynaha laakiin qabyaalad baan arkay qurun baan arkay xaasidnimo baan arkay dagaal isrsafeen oo qabaa'ilada Soomaaliyeed lagu sameeyo ayaan arkay waan ka dhidhiyo waxaan ku soconmay ana ugu dambeeyo saameynteedu Mareykan bay gutay safiirka Soomaaliya loo soo magacaabay bartan ee Farmaajo u soo magacaabay baa si toos ah wuxuu igu yiri ogaadeen baa tahay ogaadeenna waa mucaarad ee meeshana safiirka dhagax tuurto oo madaxda dhagax tuurtaan ka baqeynaa baa lagu yiri dhageys halka waano shakhsiyan saameynta ugu yeelatay darbiga soo taabtay way in badan oo dadka Soomaaliyeed ay cabanayeen afkaan kaga taagnaayo waxaan lahaa war been baad sheegaysaan oo madaxweynaha xafidullah baa ku hay laakiin xaqiiqdii iyo reality baa maanta taagan laba saddex arrimood baa ka hadlaya soo jabhadeenta uu madaxweynaha soo jabhadeen rabo oo asirta qarxinayaan idin sheegaya waxaan ka hadlayaa oo kaleeto isir safeenta beelaha kabla laxdaarood la yiraahdo uu ku hay madaxweynaha baa ka hadlaya dhageysta wallahi inaan hadal beene magac ilaahay baan ku dhaartay hadal beene aan ku darin وهذا البين إن أنا راعين أنا ضبله وساس أو صوت أجناء ونداور يلعب بقاطع لعب بالسية تراك باللوك ذي باللي واحد من أنا ضبله بالبات هذه تراك لي قدرنا تراك هلا يقاطو هذه العقل يصير يلعب هلا يقصتو حقيقة كان الله الصومالي هو باور شيرين و 4.5 أود لو قيب صدوي الصومالي دقيش مدحوير محمد عبد الله فرماجو مدير مركو جوجي وحو إثيوبيا أنت أنا إثيوبيا قلنا بوحير دب ويرنقريا رالنو qodobada way xasaas siday tahay baan u kor istaagaya sirtaana waan qarxinaya inta aanan arinta galin baan wax idin sheegay madaxweyne maxamed Abdullaahi Farmaajo markuu xilkan qabanayay ee riyaaqeena nacamleynayna sabcinayna nikinayna in laantan ku taageerayn wuxuu qalbigana ku gato ummad Soomaaliyeed oo badan ku gatay Itoobiya waa cadawganaga dhageysta Itoobiya waa cadawganaga waa la dagaalamayna dalkan ka saarayna ayuu nagu yiri madaxweynaha ومدحوينها الصومالية وي إثيوبيا دي شلي ولي وتاجتها
dastuurkii shalay Itoobiya ku dhaqmayso wali way ku dhaqmaysaa dhaqankii ay shalay lahayd Itoobiya wali way leedahay madaxweynaha Soomaaliya waxa weeye dadkii madaxda ahaa ee siyaasiyiinta ahaa wuxuu inoogu sheegay inay Itoobiyaan kalkaal yihiin inay Itoobiya ma garanaysaa ay u nacamleeyaan inay Itoobiya ka marqaataan buu inoo sheegay balagaysta madaxweynaha Soomaaliya way sidii baan ku riyaaqnay ilaa Itoobiya waa cadowganaga sidii baan ku muxuboonay ilaa Itoobiya waa cadowganaga raacnay madaxweynihii dabagalnay madaxweynihii raacnay oo ku daba feelnay madaxweynihii maxaa dhacday Itoobiya noo keenay socoto Itoobiya socoto lugaheedii leh oo ciidankeedii wadato ayuu inoo keenay wuxuu yiri waa walaalaheen jeclaadu yiri aad baan oga qiiroonay waan isqarinayay hoos baan fiirinayay nin qowl qaaday baan ahaa 3 sanad dawlad taageeriyay madaxweynahayga intuu ka duulay Muqdisho oo Itoobiya uu tagay waa la muraajacoonaya taariikhda dib loogu noqonay intuu Itoobiya tagay oo isaga iyo maasha Allah marwada koowaad ay fiyooro qaadeen iyo wuxuu dul dhigay ciidamadii Itoobiyaanka ahaa ee 77 hooyooyinkeegii dooxay ee 77 aabayaashay dilay ee 77 awowyaashay lugaha ka jaray ee 77 Soomaaliya baabiyay Itoobiyaankii shalayto oo 2007 ahayd Muqdisho hooyooyinka hoobiyaha guriga ugu geenayay hooyooyinka ku dilayay caasimadda Muqdisho ee taariikhda iga xoqday intuu fiyooro qaaday buu dul saaray ana duqbilow hoostan ka oynay macnaa qowl baan qaaday waan iska nacamleyn laakiin Ilaahay baa xaqay tusay dhageysta hadalkaygaadu dhageysta Itoobiyada nooca ahayd kuwii hore maysan tagi jirin fiyooro maysan saari jirin raggi aniga ilaayay raggi aniga dilay raggi aniga baabiyay yu fiyooro kor saaray yu fiyooro iyo nacamleen iyo sujuud iyo marwadi koowaad iyo madaxweynihii bay dul saareen fiyooro dul saareen miyaan ka hadlay cid ka hadashay baan arkin waa noolo qariyo qayli baan ku jirnay buuq baan ku jirnoo nala dhaayay waxaa sameeyaa lagu jiray bal halka iga dhig Itoobiyadii u lahaa waanu nacamnahay oo waa cadow asoo sujuudayo oo fiyooro saarayo waliba kuwii dhameeyay fiyooro saarayo taariikhda qorayso meel bay taala xaqiiba duqbilow Ilaahay tusay oo uu ku aadaamay ummadu qalbigeeda bedeli oo maskaxdeedu bedeli oo xaqiiqdu ka sheegeen halka iga dhig madaxweynihii Soomaaliya ee oranayay Itoobiya waa cadowganaga ee Itoobiya waa iska dhicinayna muwaadin Soomaaliyeed buu dhibaan oo duqbilow qaabka anaga hadlo waan garan lahaa nin qowl qaaday baan ahaa nin calan jeclaa baan ahaa nin dawlad jeclaa baan ahaa laakiin xaq darrada waan arkay Ilaahay baa indhihi furay had intuu muwaadin Soomaaliyeed qabtay madaxweynaha Soomaaliya uu gacanta ku dhigay yuu dhibay Itoobiya u dhibay jabhadii xaq u dirarka ahayd ee 100 sano soo dagaalamayay yuu liiska argagixisada ku daray Itoobiyadii naceebka Soomaaliya u qabtayna way ka saartay liiska argagixisada saacadan iyo waqtigan iyo saacadan aan idin hadlayay taaganahay dastuurka yaan xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ololif waxa looga aqoonsan yahay inay tahay argagixisho bal halka iga dhig ciidamada Itoobiya wariyaada runta la sheegay war xaqiiqda laga hadli war runta la sheegi waa la gali jabhadeyntan madaxweyne farmaajo waa soo jabhadeen raba Sheekh Shariif iyo Sheekh muxuu ahay Xasan Sheekh Maxamuud yaa waa loo iyo way mucaaradeen baan ku haysanay madaxweynaha soo jabhadeen rabo ee jabhadda hadda asaasay yaanu ka hadlaynay dhageysta madaxweynihii Soomaaliya ee Itoobiyana nacsiyay ee Itoobiya ku kaambeen gareeyay ee Itoobiya waa cadowganaga ku hayay asoo ciidan Itoobiyaan watu kismaayo ku weeray ariya been dhig karo ana weega indhaha duubna indhaha ii xirra والله أنا بينه إنها إحرة ساسا إنها يقول حراين مكاسان قرع كوي علن جعل بانها بين الله شقي بانها حقيقة إيا نبت واحد درتر وحيد إنا يقبيالد إيا رير لكوكال عارقو سرية إتوبيانا تايني ريرها كوكالات كادا الصومالي إتوبيانا أي تاي ميداي ريرها الصوماليا كوكالات كادان يان حقيقة السوق هذا إنها إحرة من دولة جعل بانها من عركة جعل بانها لكن قبيالات بيقوها سودين وادو جدان ودار كيسان حقيقة دار كيسان والله بوسا الشلين العاقة ولقاي الله ولقاي بدح بينها الصوماليا دوسر إسين لكن المواطنة أو دلكي يسجعل أو عالكي يسجعل أو وحارها ولقاي يالي ودي من يدولة نمد الصومالي لكن مركي يسوكي قارتي مركي حقيقة يسوكي قارتي أو رنتي يسوكي قارتي والله وان برقرية وكاعدي عليك ارتبالي رنتا كالي حقيقة الشيء مدحواريه الصوماليات
إثيوبيان كنا نعشي أسوعيد ما إثيوبيان وطو أو تكنيكالي وطو يكسما يكويري أحمد مذوب كويري أنا نعم لنا يا نضقبلو عروك هبارك الشغل أنا نضقبلو يا نعم لنا يا واني ذيك قرية أو حالها موسى ذكواي بان يا بربغاندان وبدا الصوماليات كويريرين واي وريري دولة هذا قاغضو على هلا الصمية إنستوشن هذا اسمه دولة دي ما هتمادو دولة هلا من نقطة يا كواي لكن خيانة سعودي رير كارغو سنيو إد لا دقال لبيسو إد لا جلافيريو إد دقال لقوضو إد حلك لقا قاضيو إد لبهدليو أنا أود هيستو لعقتان كنت كرفالي ميل بان ديغان جبهد بان هذا السي أساسي هورها مركان أركيان ودقبروي قوان بك قارادير معاي قوان بك قاري هبين عدبان قوان انتان كقاري أو صوك عبان إلهو أذا وين واحدة إلهو الدولة دي أنجعلا انت أن تاغيري انت أن واقعي إلهي وكهر مان دونا إلهي رنتا كشيغي دونا إلهي هدي حق يقوليهين إيقا قبان كوري إلهي هدي حق يقوليهين إيقا قبان هدي حق يقوليهين أو إثيوبيان دالك النقل لسوقلي أو موادنيتي إثيوبيان لو ديبي أو بين لا يشيغي أو شالي اللي يويري إثيوبيان كوحبا كبجرو إثيوبيان كالله دقالميا مانتن إثيوبيان كي تكنيك ديسي كسمايا لغو ويري إلهي وحاني هدي حق يقوليهين إيقا قبان هدي حق يقوليهين إلهي رنتا يقول رنتا يقوات هل سنة هاري هل كاسنا إلهي ما رنتا الشيغو صدح سنة هدان بين شيغي إلهي هل كاسنا ما رنتا الشيغو بل لغيش تمرك مدحوينها الصومالي قرشوه تاني دي شيغي قرشها قوته iyo dagaalku ku diray baan idin sheegaya Soomaaliya waa 4.4 way 4.4 macnaheedu waxa weey waa power sharing in ummadda Soomaaliyeed ee qabiilka isku dishay ee reeraha isu bursatay ee xamar isaga saartay ee qaxootiga isaga dhigtay in awoodooda la isu keeno qabiil la isku tuso oo la yiraahdo hebelow inta qaado hebelowna inta qaado bal nabad noqday la yiraahdo dhageyst انت انا قالن جبهدنت يا وحيان ايدي شيغيا ور ما ضمير لا بارح مر ديق لعان بارح ور ميل 4.5 wax lagu kala qaadanayo oo dadkii kala carreed oo nin walba tuulo aaday oo waliba Soomaalinimadii laga carray oo anigi ku taagnaana doqol lagu tilmaamay war ma damiir laan barahay bal lagaysto beesha kablax dagaalka uu ku waday farmaajan idin sheegaya wuxuu go'aan ku gaaray 4 sano uu joogo inuu magaraysaa burburiyo Jubbaland inuu burburiyo Puntland inuu dhulka iyo digada ka dhigo laakiin aqli bay yeesheen oo way garteen oo way fahmeen oo way istaageen way iska dhiciyeen oo yacbay yiraahdeen qorshaha uu hadda sameeyaan idin sheeg markuu ma jartay wax ka qaadi waay dadka kale wax ka qaadi waay beesha ogaadeen gumaadku ku bilaabaan idin sheegayaan bal carwa ka muwaadinka Soomaaliyeed ee maantii dhageysanayo ee xaqiiqda iyo runta sheegaya dhagiisa ku dhacayaano beenta way igu duqbilow isir safeena ma ha duqbilow igu waa ka yeelaya hadda daliisheeda keent bal dhageyso beesha kuumadag beesha la yiraahdo in anigu ka dhasho dawladda Soomaaliya waxay ku leedahay 4 xubnood bay ku leedahay markii baarlamaanka iyo waxa laga tago 3 wasiir bay ku leedahay dawladda Soomaaliya hal wasiir oo buuxo iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dawlad leedahay dhageysto hal wasiir oo buuxo iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dawlad leedahay marka xubnaha halka taagan yihiin kabralax buu xiray Axmed Madoob la dagaalamaya bal dhageysto hadalka وزير عمر صاحبك وشقينا يا حفظ الله شغدي سويستا ومواد شقي سنيوي وزير كارمها الدبدة وزير كحياكي سوانينا وقاذينه أو بسماه 2007 دنبي بو فرماجة كسوقي بل دقيست معها كلية إنو حري نيك اللي يرادو قلب النجح كلي إنو حري معه أحمد مدوبين والله دقال لما يمه إنو كسمايا عنقبتها ساري معه إنو دوبلي عنقبتها ساري أقرب هري إيا اللوق iyo dawladda diyaaraddu ay tagaysan ma bal lagayst wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa weeye Mukhtaar ninkay dhahaan baa wasiirku xigeenka waa nin beesha ogaadeen u dhashay baa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayr waa ka kari waayay ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayr wuxuu yiri war waxana waa ethnic cleanliness wuxuu yiri kaana yeeli maayo waa sababta beelaha kuumada ee Jubbaland degan ama meel walba had deganaadaan ay khayr favor ugu sameeyaan way farmaajo wuxuu xukun dambi ku soo oogay wasiirka arrimaha dibadda wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya yu dambi ku soo oogay dambiga muxuu yahay ana idin qarxina idin sheegay dhageysta taana idin ku sheegay jabhadeenta uu soo wadiyo jabhadu hadda sameysanayo madaxweynaha Soomaaliyana waa idin gali doonaa dhageysta wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waa ninka hawlaha kala wado waa ninka wasaaradda hawlaha arrimaha gudaha
حفيسيه هذا قدها كلا وذوي وزير كارمها دبادة مستر عود سفر بو كم مغنى وسفر شقاء أيو كم مغنى وحاد على وزير كارمها وزير كحجاء كارمها قدها وحفيس كي سجوا يا وحاوي من قلادي كانت كورنتلا أوتي قلادي تلفون هذا إنترنت كأوتي من حفيس كي سوقر وروح الباب كده كسوقر عام بحير هذا دور بلاد بلعت هذا كله النبي ماذا بحين وركرنتدي ماذا بحين والإنترنت كانت كل شقين إنسان ماذا بحين أنه بيزنس بانا وقلادي بيزنس كه كورنتلا أوتي بيحب اللي يقول لعقت محايد كغلط وزير كحجاء كأرمها جدا أرمها دبادة وهو وعي وزير كأرمها دبادة وعي مستر عود بوع وحكير عود أو رجي كورنتلا إيا إنترنت إيا بيها الباب كي تجيه ورمحاد عيب يرم حاسبية إنترنت كنا وانقوسنا النبي يرادين كورنتلا وانقوسنا النبي يرادين بيل ماشي لما بحنا محاد مستر عود حير وحوعي وزارة لها هوسا قسيسان وعيا إيش بكير وكوس علنا نمكره بلا نقبه وزير كارمها جدا وزير كحياة كارمها جدا أرمها دبادة الصومالية والرجل بلا نقبته وحكير برمة بردا بعمل يقصونه عود وحوعي وزارة مالية إيا بنك قد حيا الرجال شقة قسيسان وعي وروحكير ورنا ماشي كرتها لا قصرية ماشي أن كمبيوتر داير بيسنسيتيف بايالو ور واحد دولة هاي صادرة يام بماشي كدره ور هدي كرتها اللقاية إنترنت كاللقاية وحاول خلخل بي وزارة الرماد دبادة الصومالية خلخل بي قال يساوي كوير محايد كخل دنبو يربحية بيلك تلفون هذا اللي قد السنة تلفون هذا أيها اللي قد السنة وزير كرماد دبادة الصومالية مستر عود وحصوعي وزير كحجاء كرماد دبادة الصومالية ورا وحكوير دقايش إنت ماشي اللقاين لها كرتها اللقاش لها إنترنت كاللقاش لها إيميل بدن يدار بيس كايس كل حياة لها وحيري أوترتي ينكسير يا ويري قسند وزارة دولة كبحي $10,000 كبحي بكويري $10,000 كبحي بيلك كورنتدا إيا ميقرس هيا بيها إيا كبحي ويري سي بيلك إنت كورنتدا لقوش الله وزير كحيقاك يا رماه دبادة مستر مختار وحو يرى يا قاسمه وحو يرى وزير دولة وحلا يرى رقي قسيسان نمبو يري ورياضة كالا يكويري وزير كرمها دبادة الصومالية يا خد كايسو قلبي وحونا إيسا قينا رقي تلفون هذا كدا السدين ومستر بيلا يبقى قد حوي وحو أمر يقول يري وزير كرمها دبادة إن انتلقاكم كبحي قسنده سيو رقي إنترنت كاينا سيو رقي كورنتادا إنا سيو رقي بيانا إنا سيو كالا يكو يري توانين أو مرخاتي وسوك عيست توانين أو مرخاتي يسوك عيستو كو يري كالا يا ميشان إلى فرع رلتا لقى هالليا رلتا لشيء حقيقة لشيء سيدا يتعيب حقيقة لو شيء إزر سفنتن إيرير كان لا دغالمay iyo jabhada soo socoto ee la rabay lagu argoosto duqbilow bay ka hortagay sida ay tahay buu uga hortagay aadiyad sida ay tahay ayuu uga hortagay duqbilow raal noqdo wax yar iga raal noqdo qorrax waalan bay hayso هذه هذا بروح سكر طبعا وزارة كشقيشو أيو سوق حيشته وزير كحيلة كريمة دبد وحيري مرخاتي كان نقضة لعقبان برتن كبحينيا طبعا $10,000 وحانا كبحينيا طبعا كان $10 كرتول لقوصانيا وحانا أمر يقصي وزير كريمة دبد إيه صومالي مستر عود أيا يقصي وير أمر مرخاتي بكاهايان كولا كل قريب وفري ويداورين لعقتي بكسو بحيي بيل كيبو سيي كورنتادي بو سيي بيل كيبو سيي انترنت كيبو سيي بيل كيبو سيي بيهيبو سيي رسيد يكربتها برتي بو دغي وزير كارمها دبده مستر عاود با يبد رسيدي بو ديبي وان بخيي وير فرماجه مخو يري ازر سفين بو كجري قلبي دغخ بو ديبي او توبيو ديبي احمد مدوب لا دغالماي وان اوغنا كسمايو صاري عنقبتن وان اوغنا waxaasoo dhan baan la soconnaa Ethiopia cadow inooga dhigay uu sujuudayo wuxuu saaray fiyoor dul saaray bal lagaysto duqbalow maanta runta iyo xaqiiqda ka dhageysto soo fiican uga dhageysto farmaajo wuxuu yiri yuma maxaa waraxas ma jirto soo nogaadeen maaha
dambi baxar buu igu jiraa shabaq buu igu jiraa dagaal baan kula jiraa raggan sidaan ku ciribtir laan ku jiraa cawd uu dagaalamo warnaa waxaan xaq ma ku yiri cawdo waraa waxa lagu yiri kablaxnimo wada suma cawdo kablaxnimo iyo hawlaan loo joogo shaqadaada ma wadanaysaa lagu yiri masaadigana waa ku fiijiya cawd masaakiin buu noqday shaqadiisi halkaas iska tagay shaqadiisi xataa rag kala wad bal lagayst wuxuu wacay qolada maxkamaddu wacay farmaajo qolooyinkii maxkamadaha ayuu wuxuu yiri dambi degdeg ku soo ooga ninkaas dambi dhaqsay ha lagu soo oogo dhagish dambi dhaqsay ha lagu soo oogo qoladii maxkamadaha waa yaabay sababaha loo fiijiyay ninkii xeer ilaaliyaha hadda shaqada laga buriyay ee maalin la buray waxyaabaha ka mid ah balagays ilaahay baan dhihi noo dilaaciyay oo runtina tusay oo xaqiiqdana tusay isir safaan bay ku jirtay dawladda annaguna caalam baan raadinaynay dawlad baan raadinaynay aqriinay dalka adduunyada la mid noqonaa raadinayn calankayga waa ku jeclahay nuurow noolow cadowga waa laga qaban laakiin beenaale Itoobiya waa cadow yiraahdo oo haddana yiraahdo waa walaaleen oo fiyooro saaro dagaal baan la galaynaa dhageys farmaajo maxkamadii qolay xeer ilaaliyaha uu cadow ku soo meeshan dambi ma yeelay ninka rasiidiyo wataa maxaa kugu dhacay maya si kastay taaba dambi ku soo ooga wasiirku xigaankii arrimaha dibadda Master Mukhtar dambi baa lagu soo oogay shaqadii baa laga joojiyay dhageys shaqadii buu ka joojiyay dambi buu ku soo oogay booski wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waa banaayay booskana waxa xaq u lahaa beesha kuumada iskale inuu soo magacaabana waa diiday inuu qof kala siiyana waa diiday wasiirkii iska lahaana shaqadu ka joojiyay maxaa kala tuusbi dambi baa lagu waayay maxkamadii baa laga war dambi kuma hena liir dambi sirdoonka qolooyinka sirdoonku wuxuu yiri wadanka ma bixi karo wadanka kama bixi karo Master Mukhtar wadanka kama bixi karo ku yiri nin aan shaqahayn oo mishaar lahayn guriga wasiir Omar buu ku noolyahay come on I'm telling the truth ana dublow xaqiiqda kaarnay guriga wasiir Omar yu ku noolyahay dulsaar ugu noolyahay shaqadiisina waa ka qaaday booskiisi ma buuxin caruurtiisa Ingiriiska dagana inuu aadana waa u diiday sababtu ugu diidana waxa weeye inuu sirtan iyo arrinta fashilay yu ka diiday markuu aeroboorkii maadaba sirdoon nimanku reer madaxweynaha yaa dib u celay bal lagaysta hadalkayga aad u dhageysan soo qodob ma dambigu ku haysta kaaswi booski waa banaaye beesha kuumada iskale beesha absama iskale beesha ogaadeen ba iskale xilkeedu waa banaaye why dhageyso beesha ogaadeen waxay iska lahayd xilka wasiir dawlaha wasaaradda diinta iyo qaafta iska lahayd waliba beesha makaahiil ba iska lahayd muxuu ku sameeyay farmaajo dagaalka iyo khiyaanada uu ku jiro iyo lugooyada uu ku jiro ilaahay baa xaqi maantay tusay umada runta loo sheegay difaac bay gali dagaal culus baana la qaadi doona insha Allah oo dawladda looga hortagayo dagaal culus oo dawladdan qabyaaladaysan ee qabyaaladu ka buuxdo looga hortagayo ayaa bilaabanaya insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo muwaadinkii Soomaaliyeed ee xaqa ku aadaami jiray waa ka hurdada maanta ka toos waa ka maanta hurdada ka toosay waa ka maanta xaqiiqda sheegayo waa ka maanta runta ku aadaamay laga nasan maayo wallaahi baan laga nasanaynin duqbilow wallaahi oo billaahi baan ku dhaartay ilaana duqbilow laga nasanin xaqiiqdu sheegi runtu sheegi waxa jiruna banaankeena muxuu sameeyay farmaajo dhageysta daran beesha makaahil ee ogaadeen ee kuumada booska lahayd buu intuu qaylo yiri saan ogaadeen kula dagaalama wuxuu sameeyay intuu wasiirkii u yeeray wasiir dawlihi oo qaaftiyo diintu tuu yeeray ku yiri safiir baan ku magacaabaya safiir yaa ku magacaabaya meel hablaaya tagaysa waa safaaradan jirin oo uu og yahay oo lugooye oo wax ka jira aysan jirin yu safiirkii tuu warqad soo saaray yiri safiir baa too meel hablaaya ku magacaabay safaaradana wax ma dhisno ma jirto dhaqaale male budget male عود واوجي dadko dhanna waa ogyihiin booski wasiirka laga qaaday cidna nin kale makaahilna uu soo magacaabin nin kale ogaadana uu soo magacaabin bal lagaysto ikadi habartanan blogray walla iyo billah hadaa sixranaana sixirkiiga bax hadaa sixrana oo la xalay qaray oo sixrana sixirkiiga bax quraan badan baan akhristaan oo maleynaya bal lagaysh booski intuu ka qaaday yu safiiran jirin oo waxba ka jirin yu magacaab booski wasiir dawlihi oo qaaftiyo diinta ee federaalka Soomaaliya ee beesha ogaadeen iskale waa haawanaya booski ay lahayd beesha ogaadeen ee wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda waa haawanaya bal lagaysto war miyuusan ku jirin farmaajo dagaal qabiil war miyuusan ku jirin isir safeen miyuusan ku jirin Soomaaliya adaan ku idin ilaa baashan waa 4.5 la qaybsanayo oo awood power share lagu qaybsanayo asagoo kursiga 4.5 beesha daarood buu ku yimid
maxaan kuu sheega waadano absamow kablaxow maxaan kuu sheega beesha absame saddex kursi saddex awoodood bay ku lahayd dawladda federaalka Soomaaliya oo maar oo saaxiibkay markii laga reebo oo wasiirka duulista hawada moogiye wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda oo xaq u lahayd oo power sharing ugu qoran yahay dastuurka ugu qoran yahay beeshoogaade uu haawanaya ninkii iska lahaana xabsi guriga ku jira wasiir dawlihii awqaafta iyo diinta ee power sharing loo siiyay beesha absame loo siiyay uu haawanaya safiiraan jirino feeg oo beeno meesha aan waxba ka jirin buu meesha ku magacaabay hal safiir bay ku lahayd safiirka Masar beesha ogaadee ku lahayd uu ka qaaday wasiirka waa safiirkana waa ka qaaday bal dhageysa beesha kablax dagaalka uu ku qaadayeen anigu aamusnaa aan shib ahaaban wax yar idii ka sheegay dhageysa marka anigu ma nacas baan ma doqon baanahay iska sii nacamlay ma doqon farmaajo xafidullah ku sii hayaan sii noqda illa meesha waa 4.5 oo lagu kala qaybsanayo awoodda lagu qaybsanayo power sharing lagu qaybsanayo miyaa sii nacamlaya meel dadkii aniga aan ka dhashay eeladii aniga aan ka dhashay iyo dadkii aniga aan ka soo jeeday meel lagu gumaadayo axmeero loo dhiibay meel hooyooyinkii Soomaaliyeed kismaayana umulihii lagu dilay cunaqabateen lagu dhameynayo dhooblaya iyo afmadow gaajo lagu dhamaanay ma sii nacamlaya marka meesha garbahare iyo luuqna diyaaraduhu way tagayaan caawmaadii beesha caawinka galeydii loogu talagalay in la geeri no socon may sartay balageysto safaaradda Mareykanka warigeed 4.5 sharing waxa uu qaadan jiray beelahan kablaxda uu qaadan jiray balageysa farmaajo dagaalka uu galay ee beesha kablax uu la galay ee anigu ka dhowsanaa ee dhalaantu iga heysay ee aan lahaa war waa sax war hadu dumiye Puntland war hadu dumiye Jubbaland war wasiirka ka qaad war xubin naga gal asagana uu dhargayay al-shabaabkoodana uu safiirka taliyaha ciidanka uu noqon yahay idin balageysa halka safaaradda Mareykanka 4.5 baa sharing awood Soomaal loo qabso safaaradda Mareykanka ku taal DC ku taalo waligeed Allah beesha kablax baa iska leh oo sharing mar loo gaadeen baa qaban jiray marna ma jirteen baa qaban jiray sanooyinkii u dambeeyay Umar Cabdirashiid iyo Axmed Awid iyo markii laga soo tago sanadihii hore Siyaad Barre uu joog jiray ee taariikhdu sax ahayd in ogaadeen absama meesha joog jiray saasa loo kala qaybsan jiray meel aan Soomaaliya awooddeedii qabiiladeedu iyo safiiradeedii awooddeeda meel aan la isugu tagin baa jirto muxuu sameeyay farmaajo dagaalka uu galay waxay ahayd inuu marka koowaad ragna camlayaale oo xoogaga wadaniinta la yiraahdo anigana social media ka barbagandeeyo inuu dalku qabsaday way shaqeyn waysa si khayr isku dhacay la kala tag meesha khayr wuxuu yiri anigu reerkanaga la gumaadi maayo farmaajo wuxuu yiri anigu reerkanaga in badan bay ciilayn dagaal baa galaya annaga meesha ku saarnay xoog wadaniinta annaguna waxaan runta sheegay xaqada shil muxuu sameeyay farmaajo muxuu rabay inuu sameeyo marka hore wuxuu rabay inuu marka hore ka adkaado Axmed Madoobe inuu ka adkaado ma garanaysaa Puntland in maamulada Soomaaliya oo dhan uu ka adkaado oo uu geysto bro ma garanaysaa ku reerka farmaajo u nacamlay kali meesha reerka farmaajo dad u nacamleeyo oo sida duqbulo oo kale tahay ma sha Allah in laanaha in uu meesha geeyo wax inagu dhacayba garan mayn in Axmed Madoobe meesha ka qaado nacamleeyo geeyo Puntland meesha ka qaado nacamleeyo geeyo meelo badan nacamleeyaal u geysto oo kadibna xooga wadaniinta ay doortay 20 sano iyo sheekadii iyo buugi qarsoona uu hoos ku soo waa socon weys geemka waa fashil maarintayda arrintii ayada ahayd waa fashilta hadda markii waxa taagan baan idin sheegay iyo pointiga iyo qodobka aan soo qoray ee aan ku wajahan reer Jubbaland runta u sheegay reer Jubbaland iyo qabiilada barta dagarow runta idin sheegay dhageysto farmaajo Puntland waa ka guuleysay waa laan dheerayaal dhalay oo xiniyaha labadii xiniyood ee burburra miiska soo saartay miiska intay soo saarteen meelan aniga iyo kuwa ila mid iyo dad badan oo Soomaali annaga ah waana ahaan doonaa lagu khalday iyo meel fog wax ka arkay iyo dagaalka uu ninkan ku jiro iyo qiyaaliga uu ku jiro iyo argoosiga uu ku jiro markay arkeen iyo go'aan gaareen maxaa soo socda hadda oo Jubbaland ku soo socday idin sheeg farmaajo ciidan buu arursanaya farmaajo ciidan buu arursanaya ciidankaas oo rabo inuu ku soo jabhadeeyo dawladda cusub ee dhalan doontana inuu uga soo jabhadeeyo Kismaayo Jubbaland uu ku qabsado ayuu doonaya haddan idin sheegay arrinteeda halka u dhageysto hadalkayga aad u dhageysto reer Jubbaland inay difaac galaan baan ka rabaa inaad isdiyaarisan baan ka rabaa naxariis la idima falin cid naxariis idin fashay male awoodiina iyo aqligiina intaad ku soo gaarteen macal aniga oo idinka soo horjeedo oo dhalaanaha aqligiina iyo sharaftiina iyo karaamadiina ku soo gaarteen qorshaha hadda idinku soo socdo yaan idin sheegay
awood dawladeed waa la idinka guulaysan waay axmaara la soo kaxaystana waa la idinka guulaysan waay qorshaha hadda idinku soo socdo ee idinkiyo Puntland iyo Jubbaland inaad ka gaashaamataan loo baahan yahay waxa weeye oo aad ciidamadiina tababarataan loo baahan yahay waxa weeye oo dhaqaalihiina midaysaan loo baahan yahay waxa weeye farmaajo ma soo noqon rabo he is not coming back anymore cid u baahan male ana ugu dambeeyo maanta wadi jeeda cid farmaajo u baahan oo soo celinaysa ma jirto laakiin farmaajo qorsho wata lacagii uu arursaday iyo wixii uu arursaday haduu dawladnimo reerkiisa wax kaga dhigi waayay kismaayana gacanta ugu gilin waayay qorshaha uu wato hadda ee socdo ee bilowday waxa weeye inuu rabo inuu gada ka soo jabhaday jabhad aad u culus oo gada ma garanaysaa ay ka dagaal gasho oo hub badan loo geeyo oo rag badan oo la soo siray barta ay ka dagaal galaan ayuu rabaa farmaajo inuu sameeyo waana ta uu kula dagaalami doono dawladda Soomaaliyeed ee soo socota weey qorshahan hadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif lagu hungeeyay ee ummadda looga horkeenay qorshe uu farmaajo dagaheed balan bigiis balan ee markuu ku guul dareystay ee ahayd inuu maamulada dhulka la dhaco uu ka guuleyso nacamlayaalkeena markuu ku guul dareystay balan buu dhaqaaqay wuu ogeen uu soo noqonay balan bigiisa wuxuu ahaa inuu Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ummadda intuu tusa u yiraahdo waa kuwa madaxweynayaal mucaarad asaa ku kalifay qorshe uu dabacsay waxa ay rabaan hal sano ka hor hadday sii sameeyeen waa naqshadda isticmaal jir waxay rabaan hal sano hadda kadib inay sameeyaan hadda la sii qojeeya sababta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif loo qujeenaya miidiyaha loo horkeenayay ee loo lahaa waa loodho afkana lagu gelinayo waa loodho way dagaalamayaan loo lahaa ee ummadda loo tusay qorshe uu farmaajo siisa la xariibay oo raba inuu ka soo jabhadeeyo deegaanada gado kulana dagaalama Axmed Madoobe hatta haduu asaga soo muuqan inuu hadhow ma garanaysaa ku dagaalamo oo dhaqaalihiisa ku bixiyo Kismaayo ku qabsadaan dhageysta hadalkayga blueprinterka noocan buu u dhisay si fiican oo wanaagsan u dhageysta Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif rag baa lagu dirayo miidiyaha inay imaadaan waa lagu qasbay in ummadda la tuso la yiraahdo madaxweynayaal hore oo dalka soo maray oo mucaarada wakwa oo dhaaranayo oo leh wakwaas waxa weeye Muqdisho la iska saaraya waa lagu qasbay ragga afkaageeda laga gelgeliyay kasiya maag baana loogu talagalay bahdilaad in lagu sameeyo idaacada yimaadaan qorshe loogu talagalay oo la rabo in lagu soo jabhadeeyo barrito si lagu soo jabhadeynaya farmaajo markii la weydiiyo ee la yiraahdo maxaa la jabhadeynaysa muxuu yahay ciidankan gada ka dagaalamayo ee ula dagaalamaya Jubbaland iyo dawladda la dagaalamayo maxay yihiin markii la yiraahdo inuu yiraahdo hadhowdi waxa weeye Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud waa kay waagan madaxweynaha ahaa ay dhaaran jireen waa kan waagan madaxweynaha ahaa ay dadkooda ku dhex jireen waa kan waagan madaxweynaha ahaa ay mucaaradi jireen dawladda maxaa aniga tuka cambaar layga dhigay qorshaha la wato dhankaas weey qorshaha la wato iyo hawsha la wato taasi haddaan idin sheeg marka farmaajo ma soo noqonayo mana ku soo noqonayo Soomaaliya saaxadeeda siyaasadeed dib ugu soo noqon maayo dadkii waa dhameeyay Kismaayo waan ognahay cunaqabateynta saaran iyo dhibaatada lagu hayo baydhabo ummadii lagu dhameeyay ee nalaanta laga dhigay ee xabada lagu dilay Itoobiyaanka loo adeegsaday yaanu ognahay Puntland qalabaa siyaasadeed iyo corruptionkii dhaqaalaha la geliyo in la burburiyo ayaanu ognahay farmaajo wuxuu rabaa reerka gada degan ee asaw ka dhashay intii ka falaagooday way ka falaagooday wuxuu hadda ku daabulaya diyaarada ciidan oo rasaas iyo hub wada ku daabulaya wuxuuna barta ka dhisay jabhad xoog badan oo beeshiisa ah oo berita asaga ka amar qaato yu barta ka asaasaya kii asaga kor yimaadana hal nin buu ka baqayay hal nin yu ka baqayay oo Soomaalinimada aaminsana oo inaan annaguna hadda koor god ku tuur ninkiina waa xiray dhageysh ninkii la oranay Cabdirashiid Koore ee Jubbaland la shaqaysanayay beesha uu madaxweynaha ka dhashay farmaajo ninkaas uu ka baqay ninkiina maalin cad intuu qabsaday buu god ku rakalo samaystay ciidan buu barta ka hagaajiraya ciidanka wuxuu rabaa inuu berrito u dhiibo barhiiraale asagana ay ka amar qaataan
دولة الصومالية إيمان دوتنا وكلا قرقرطمه وهدو قلالاسا سياسات كوغليو وهدو ذا حالات دبارك الحن نقطه رجب اللارية كسمائية في مدو نحريس إذين مصر سعوتي وحن إذي شيغيا سيدا دقالك أقدرتين سيلا بجبارة إذا كينا توابرت حوقيني دقاليه نسكو قيشت والله نحريس إذين مصر سعوت نعيبو إذين قبانك المسؤولك كي الصومالي حاسد نمو إذين قبانك الصومالية مدحويناك أنا إن بدن باد إلى هالليشين لكن ما أنت نوجادي حقيقة ما أنت نوجادون ريالتي نوجادي رب الله بالله اللي نجيست رب الله لو وحكستول له إذا كده يكرو إذا كده يه والله أو بالله أو تالله الدجال وكدر فرماج والدجال معه الشباب دجال هول كله تمه دجال دل كله ولا دجال لميمة والدجال بيل قبل الحلي هذا ولا دجال إنه disable كديو labada maamul ay mas'uulka ka yihiin ay haystaan inuu disable ka dhig reer Puntland waa dagaalanteen si Cabdirasiid Jaran haadiyad reer Puntland waa dagaalanteen si wanaagsan oo qurux badan baa u dagaalanteen dagaalkiina si laba jibaara oo difaaciina si laba jibaara in la idin dhaxgalo oo idin burburiyo raba diida Puntland Soomaaliya oo jirin oo la garanayn ayuu Puntland Allah u naxariistay adeerkii Cabdullaahi Yuusuf dhida bada waas wiilan yaro sala yimid oo cugdadaysan oo annaga wuxuu dooro ma garanaysaa anigu maxaan dhigaa lacag dhimashii xillay mashi waa sixran sabab qof sixran oo indhaha dam laga siiyay oo wanaagii iyo finaanta Ilaahay ka qariyay oo qabyaalad dad lagu maxaan duulay reerkaaga hal dilo duuli u nacamleen baan ku jira aniga marka reejo balaaro farmaajo qorshuhu wato waxa weeye inuu ciidan awood leh oo dhaqaalihi dawladda Soomaaliyeed lagu kabayo inuu doolow garbaharay iyo luuq iyo baar dheer ka sameeyo wallahi inna beerahay uu ku fashilmay policy-gi ahaa qaybi xukun waa ku fashil kismaayo waad kaga guuleysatay xidig iyo seeraarna khayr Allah si way soo ayagana sida ilaahay runta ii tusay ee xaqiiqdu aniga ii tusay ayaguna ilaahay ha u tuso oo waraaga ilaahay ha u tuso oo ilaahay finaanta ha u tuso oo ilaahay dib ha u soo celiyaan laakiin qorshaha hadda socdo ee idinku soo wajahan wallahi oo billaah tallah xawi in farmaajo markuu xilka ka dago wuuna ka dagaya sanwadkayga u hubo yaanu huba xilka markuu ka dago in jabhad beeshiisa ah oo awood leh oo dhaqaale leh oo xoog leh oo ciidan haysato oo lacag badan oo loo xadayna haysato inuu dagaal idinku soo qaado raba Ethiopia tirahdeen Kenya tirahdeen Imaaraadka tirahdeen Qatar baa tirahdeen Turki baa tirahdeen meel kastood la kaashan kartaan oo kaga hortagi doontaan jabhadka idinku soo wallahi waa jabhad weey wallahi oo billahi inaan beenka sheegin uu soo jabhadeynaya xogtiisa dhan baraya uu soo jabhadeen raba ciidankaas uu raba barita inuu dawladana kula dagaalamo ma doonto Jubbaland kula dagaalamo raba waana madaxweynaha وانا لا تصي دقيقتي وانا لا تصي مدحوينيال ثم والله كدار لكن waxa inoo soo socdo waa madaxweyne jabhadeyn rabo oo hadhowdi intuu Nairobi ama qadar u fariisto dhaqaalaha ku soo guro hubka ku soo guro ciidan ku soo guro aadiyad bal laga yiisado xaq Ilaahay baan tusay runta Ilaahay baan waafijiyay dagaalka uu farmaajo ku jiray 3 sano ku soo taageeray soo reerkayga la dagaalamay oo cidayda xasuuqayo oo kayga halgeyga Ethiopia u dhiibay oo hooyaday cuna qabataysa ورا أيدي بقوقاني دقن عنتي مله أيدي بقوقاني دقن عنتي مله إسبتال ما ذكرت ورا الدولة ويا قرب هرينا ديار لها تجيو أو دا وين كان لقينا $100 بالوجود فيها ورا مية سن قبيلة ذهين ورا مية سن قرن يا قبيلة ذهين ورا أنا الدولة نجعل أو عرك جعل أو صومال نجعل يا الوكر السعودي ما يتكبر الحجاو صعنا نو أنت كبر حجاو صعنا hooyada ku dhimanayso qooqaani aabay baa afmadow ku dhimanaya aabay baa kismaayo ku dhimanaya gaajiya harad ku dhimanaya war Axmed Madow dagaalka aad gashay waad ku guuleysatay wallahi jabhadan uu farmaajo soo wadana waad ka guuleysanaysaa wallahi oo billaahi oo tallaahi magac Ilaahay baan ku dhaartay adeer meel fog baad wax ka arkaysh rag dhalinyar baan nahay ee Soomaalinimadu qaaday oo calanka u qaaday oo damiirka Soomaaliyeed u qaaday baan nahay laakiin meel fog baa wax ka arkaysh meel fog oo aad u fog oo anagu dareemi karin iyaad meel fog ba wax ka arkaysh difaacaga gal dagaalkaaga gal jabhadana waad ka guuleysan wallahi oo billahi oo tallahi jabhada uu farmaajo soo wado ee uu rabo argos fikturaan ciilan buu anig nin ciilan oo inuu argosto rabo nin ciilan oo argosto inuu argosto rabay waraaseed qalbi dhac ku xirta
ساد وزيرك وزيرك حياك الرماد دبت الدم بيقصوكتا وريا ساد وزيرك وقافتي الدينتا باسكي سكوب بنيسا وريا ساد كسمايا كسر تعور قبته ساد مقرس أحمد مدوى كرة دقالتها مركات كواجا يمال والبيتنا داقيه يقليدي يدقاليه أبارت الله كان دقمين كاجي دقانا هذا جريش وريا ساد توبيان وقاعد يكستا مساكين بيد بجوت أنا نجنا ونعملنا قيانا قرن بكود الجري قيانا قرن بكود الجري وما صوماليات بالإثيوبيان واديك سنش وما صوماليات أو إلى هاي صومالي كدقي هذا واقع إثيوبيا يا دي إثيوبيان واديك ست ورا بيدما دي إثيوبيان انتاد جيش ورا نعملين إن محاولة ورا واسحرنا نيجا نضبرو أدبر أسحرنا إنها إيجا طلع مقري أنا أركينو إثيوبيان هو يدي دلي أنا أركينو إثيوبيان كلنا يا مساكين تيجي بيدما يان صوت واقع نوادي نور كويس ورا أنا أركي حمر إلا سكوب بيني حمر إلا سكوب بيني يلا سكوب دميانية أو ما تقرح ورا الدولة النفط كذا أرجع بل لقيس عرب هذه الشيء سكريا هذا نك داين الشباب وكسوقست أمنيات كالشباب نك وصل ريوها أو مسؤول رون الشبابوي أوكي نك النوار حواك النوار مرحان محاكن تلي عيدك السردوك كده محاكن حبس جلي أنا وحياة السكة قبل الله كاسوي وحياة السكة قبل الله عن فهم الله عن مقارنة الساية إسقبت سوى وحياة سكبت وريا واقب يالدوي فرماج جبهدو صوضو أدرك أحمد مذوبة إيه الريكو فرق البيت إيه الصومالي وين إيه ضدك الصومالي هذا دن وأنا كدكتور ذوي ولي من ريب بدلان بنادو لحظ ليه ريب بدلان وديس أبل بو إلي كبير بهدلات بو إلي كسمي لقيش سيدا ضد قالنتين شق روح بدن بيه إن شاء الله هدو إلى فرماج جوا تجيه كو حد ودنيين تدك فرماج تاجرته ودنيبات وحيان الله يا بكاس فرماج تاجرته ودنيبات فرماجة كورت ودني ما ور فرماجة وقبيل وي ريرهان من ريحان بكسو جدا قدنا وحكاد جاي مقرر ساي إنه ديارها وفصل إكسماعيل جبلان وحكاد جاي إنه ديارها كم ممنوع سو قبيلة دي الدجالية بريهير عليه إكسماعيل قبسنا كجر ورنقلت تجوحس دولة الصومالي ودسنايسا مواد الصومالية ذو الصح أو مدن عن أكل عن ضد كم مقرر ساي عن أكل عن يا بنا كيمان دونا تاجر دونا إن الرجال هنا نكوب حندونا هذه أدبان دي سلامية أدرك أحمد مذوبي الرجل بلانو فرماجة تضرب بلود كذب عيدا بود السنة تضرب بلود عيدا بود السنة تضرب بلود سدد بلود كذبنا وكتجي حلكن وحور بينو سوج بعديه أو كذاك السوج بعديه أو كسماء قبصده أو الله دقال الله مربع إذا كانت دولة هنا الله كاشة إثيوبيا ذا إثيوبيا نقول إثيوبيا عدوي كوي إثيوبيا واقف يوراه ودقيه وسجودي أنا يا غيرني وحى أنا يا قرني إنه كسرن إثيوبيا وفيوراه سبب رجع لا يبو سجودي رجع لا يسبب دتك لا يسجودي هاي كسماء إثيوبيا أو إثيوبيا كنا مع فرماجي سريته يا فرماجها مانت وروي بدن بالله يابكته دقبلوا رضي الله عنه مدرب محمد عبد الله فرماج كوي إن ما أنت أورنتك هذا رنت على قال سنة كنت تواني وبلاوضي سنة عصب باي بلاوضي سعر كينا يقبح ومدى الصومالية إن رنت اللوشي إن رجعنا ومدى الصومالية إن الله قلنا من يانكو قاري أو والله وبالله والله الله اللي رجع بلان وقلت بنت فرماجو جبهات بوسمي سنة وكذا هذا وكأساسية أو إذا كي يهوب كي الرصاص لو قلت لك الدولة الفدرال سومالي كذا يبار إيران لو صودا إيران كتشتان أو تقول كجارتان